sheekh Mustafa waddanka waad joogtay waxaad tiri bal ka warraba haddii marka dulcad joogteen adigoo dadka iska saaraya dalkiina la keeni lahaa cid kale oo lagu aqoonsan lahaa sheekhu wuxuu ummadda ka misliid garanayaa in la keenay oo 2 milyan oo dad oo ummadan lagu fasaqayay la keenay taas oo 30 xero xoonti in ka badan oo 2 milyan oo qof ku jiraan maalintii ay dhacay dagaal ku dhacay ay joogeen min burco ilaa awdal hoosteeda oo ummadan la doonay dhulkooda laga qaado oo loo qaybiyo lagu dhulkan idin kale qaad laakiin way dhici weydo waan isku celin bismillaahi raxmaani raxiim caawa waxaan bartana soo fadhiistay inaan shir jaraa'id ku qabto taasoo aan kaga hadlayo guruub culimo ah oo shalay meelo kala duwan ka hadlay khudbado salaadii jimcaha iyo munaasabado kalaba oo dadka doonayay inay ku marin habaabiyaan ay iskugu dhex qadaan diin iyo masiir ummadeed iyo qadiyad dal waxaan leeyahay dadku waa islaam ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah bayna ilaysaa balse waxaad culimo noogu tihiin oo idinku ixtiraamayna waa diinta islaamka iyo alla ka cabsiga laakiin hoggaan nooguma tihiin qadiyadda madax bannaanida jamhuuriyadda Somaliland taas waxay nagu taagan tahay dhiig rag sidaa daraaddeed waxaan leeyahay maraan sheekh Mustafa qodobadiisa dhageystay sheekh Mustafa waddanka waad joogtay waxaad tiri bal ka warraba haddii marka dulcad joogteen adigoo dadka iska saaraya dalkiina la keeni lahaa cid kale oo lagu aqoonsan lahaa sheekhu wuxuu ummadda ka misliid garanayaa in la keenay oo 2 milyan oo dad oo ummadan lagu fasaqayay la keenay taas oo 30 xero xoonti in ka badan oo 2 milyan oo qof ku jiraan maalintii ay dhacay dagaal ku dhacay ay joogeen min burco ilaa awdal hoosteeda oo ummadan la doonay dhulkooda laga qaado oo loo qaybiyo lagu dhulkan idin kale qaad laakiin way dhici weydo waan isku celin taa waxaan ka leeyahay rag baa u dhintay qadiyadan oo bartan soo gaarsiiyay Soomaali waa la wada yahay afkayna mideeya diin islaam waa la wada yahay diintayna midaysa laakiin qadiyadda Somaliland meel kastoo ay gasho waa laga daba galayaa waddankana cid wax idinka weydiinaysaa qadiyadiisa ma jirto xukuumadda iyo shacbiga reer Somaliland waa inay ka midaysnaadaan qadiyadooda waxaa jirta in lagu soo ballamay imika ood arkaysaa in ummadda la misliid gareeyo oo la yidhaa yuhuud baa maxay samaysay yuhuud baa maxay samaysay ilaahay baa yuhuud nacdal la iskuma hayo laakiin qadiyadda iyo masaalixda dunida joogta carabka aad mushaharka ka qaadataa yuhuud la macaamila falastiinta aad ka sheekaynayso ee leedahay 300 masaajid baa laga dumiyey cidda u cabrisaa waa carab weeyaan waa kuwana diintooda waa fadhida weeyaan marka anagu diinteeda carab ma daba fadhinay diinteeda ilaahay iyo nabigiisa u daba fadhinaa haddii aad waxaad u fahmay inaad amarkii maalintii dhawadeeda siiyey ee cali wajiis lahaa inama yarar baa hadlay ixtisaamtii waaweyned baanu doonaynaa inaad tii xisaab celinteedii wadaan war annaga culimo xamar looga taliyaa nooma talisa annaga waddanka Somaliland baa la yidhaa Somaliland buu ahaanayaa keliya diintaynu isku ixtiraamayna laakiin qadiyadda Somaliland iskuma ixtiraamayno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.